madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu maanta ku qaabilay xafiiskiisa wakiilka gaarka ah ee midowga Yurub u qaabilsan Geeska Afrika mudane Alex Randos iyo safiirka u matala midowga Yurub Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Nicholas Berlanga waxayna ka wada hadleen kaalinta midowga Yurub uu ka qaato dawlad dhisidda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga horumarinta dhaqaalaha shaqo abuurka iyo taageerada ay midowga Yurub ku bixiyaan sidii loo hagaajin lahaa wax weyn looga qaban lahaa hay'adaha garsoorka iyo kuwa ka shaqeeya sareynta sharciga waxa kale oo ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo wafdiga arrimaha deyn cafinta oo runtii midowga Yurub oo kaalin mug la ka qaato waxa sidoo kale la isla soo qaaday oo aad loo falanqeeyay arrimaha gobolka guud ahaan ka taagan haddii ay ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo amniga sidaan ognahayna midowga Yurub waxay kaalin la taaban kara ka qaataan howlaha hortabinta u leh dawlad dhisidda Soomaaliya